qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Somaliland iyo xukuumadda Somaliland ugu hambalyeynaysa Jamhuuriyadda Barbados oo loo aqoonsaday dal cusub oo caalamka ka mid ah. Dowladda Jamhuuriyadda Somaliland waxay jeceshahay inay xusto munaasabadda taariikhiga ah ee ah in Barbados noqotay qaran cusub oo caalamka ku soo biiray, waxayna ugu hambalyeynaysaa madaxda iyo dadka dalkaasi inay gaadheen qarannimo, ayaa lagu yiri qoraalka. Waxa kale oo lagu sheegay in xukuumadda Somaliland diyaar u tahay inay iskaashadaan Barbados oo ay ka wada shaqeeyaan danaha ka dhexeyn kara. Dowladda Somaliland waxay diyaar u tahay inay ka taageerto qaranka hanka weyn ee barwaaqo sooranka ka mid ah wax kasta oo khuseeya danaha labada dhinac iyo danaha caalamiga ah, waxayna u hambalyeynaysaa madaxweynihii ugu horreeyay ee dalkani oo qaaday mas'uuliyad hogaamineed oo weyn. Qoraalka ayaa lagu sheegay in Somaliland ay caalamka ka rajeynayso inay ka hesho aqoonsi sidan oo kale ah, isla markaana ay sii wadi doonto dadaalka ay ugu jirto, ayna rajeynayso in dadka Barbados ay Somaliland u noqon doonaan saaxiib dhow. Warda Aadan, Bulsho TV.